inaynu isugu nimid shirweynahan caalamiga ah lagaga hadlayo dhuxusha iyo nabadguurka ba'an ee ay dhuxusha sababta u tahay dhirtii xaalufiyey. shirweynahan waxaa loogu talagalay in waddan dibadda lagu qabto, laakiin waxaanu nidho ku adkaysanay annaguna hormuudka u ahayn in maadaama meesha xaalufinta dhirtu ay ka dhacaysaa ay tahay Soomaaliya, shirweynahanu Soomaali khuseeyo, Soomaaliyana khuseeyo, waa in lagu qabtaa Muqdisho oo caasimadii dalka ah. maanta ilaahay idamkiis farxad bay noo tahay, waa ku guulaysanay ka qaybgalayaal badan oo arkaysan adduunyada ka wada kala socota akademiga jaamacadaha iyo akademiyada dowladaha wasaaradda federaalka ee ay khusayso iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. maanta shirkan weyn baan isugu nimid oo lagaga hadli doono dhowr cisho socon doona sidii looga hortagi lahaa dhuxusha dhirta la sharayo ee looga faa'iideysanayo. kow, in loo isticmaalo tamar. laba, gudihii tamartii loo isticmaalayo waxba ka sii daran dhoofinta dhuxusha la dhoofinayo. ilaa 260 kun oo tan ka badan ayaa sanad walba dalka laga dhoofiyaa, halka laga yaabo 50 kun ama 60 kun ama wax ka sii yar isticmaalka dhuxusha in loo isticmaalo dalka gudihiisa. taa macnaheedu waxay tahay 5 laab ayaa dibadda dhuxushii loo dhoofiyay. dhuxusha la dhoofinayo dhowr shay ayaa ka dhalanaya. kow, deegaankii xaalufin ba'ani ku socoto. waa maqlayseen 8.3 milyan oo geed baa la jaray dhowrkii sano u dambeeyey. xaalufin ba'an baa deegaankii ku socota. dhirtii waa la jarayaa. Soomaaliya waxay ku dambayn doontaa nabaad guur haddii sidan aynu ku sii soconno. dhulka lamadegaha ee saxaara ah ee aan dhirta lahayn ayaynu isu rogi doonnaa haddii aynaan ka hortegin gacmaha isqabsan dowladda iyo shicibba, dowladda federaalka, maamul goboleedada iyo shacweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. haddaan laga hor iman lagana dhiidhiyin waxay dhibaato weyn ku keenaysaa xoolihii, calafkii oo mar walba la waayayo. dhirtii haddayna jirin deegaankii qurux ma yeelanayo. dhirtii haddayna jirin roob la heli maayo. dhirtii haddayna jirin abaaraha soo noqnoqday ee 2011 ugu ba'naa ay nagu dhufteen, 2016 iyo 17 ay ka sii daraayeen ayaa mar walba ina bariisan doona. marka waa inaan raadinaa habab kale oo isticmaalka gudaha ee tamarta loogaga maarmi karo. waxaynu leenahay qorraxda ilaahay ina siiyey oo qorraxda tamarta laga isticmaali karo. waxa kale aynu leenahay dabayl laga dhalin karo dabaysha tamar laga dhalin karo. cunto karis iyo isticmaalka loo adeegsan karo. waxa kale aynu isticmaali karnaa gaasta oo jaban oo ama shoolad ha noqoto qoysku isticmaalayo ama ha noqoto haanta hudheelada iyo meelaha waaweyn iyo guryaha isticmaali karaaba ay isticmaalayaan. hababkaasi waa kuwa annaga dowladda federaalka iyo aynu ka wada shaqaynayno saaxiibadeennuba in la helo. laakiin ta ugu daran isticmaalka gudaha waxa weeye dhoofinta. 69 dhowr cisho kaliya markii uu gacaanku jiray dhikrigii u horreeyay ee ay soo saartay dowladdii militarigu waxay ahayd iyadoo waaga aan la dhoofintuna yarayn sidana loo jari jirin dhirta. waxay soo saareen dhikri ay ku mamnuucayaan dhoofinta dhuxusha iyo ka ganacsigeeda si dibadda loogu dhoofiyo. dhibaato weyn baa dhacday oo dhirta iyo deegaankaba loo geystay 19 wixii ka dambeeyey. mar labaad Soomaaliya, dowladda Soomaalidu waxay ku guuleysatay in qaramada midoobay iyadoo kaashanaysa la mamnuuco. mar saddexaad golaha wasiiradu laba week ka hor wuxuu soo saaray resolution ama go'aan adag oo lagu mamnuucayo dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo wadamada Golofka, Iiraan, in la fuliyo shuruucda hore u jirtay iyo go'aanka qaramada midoobay ee mamnuucaya dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha. go'aanka golaha wasiiradu waa la fulinayaa, waanu meel mari doonaa. laakiin waxaynu u baahannahay inaynu gacmaha iswada qabsanno. ma qarsoona dhoofinta dhuxusha Soomaaliya laga dhoofinayaa, wadamada Iiraan iyo gacanka Carbeed loo dhoofinayaa. waxaanu baaq u jeedinaynaa dhammaan shacweynaha Soomaaliyeed iyo maamuladaba in si wada jira looga wada hortago dhoofinta iyo ka ganacsiga dhuxusha. waxa kale oo baaq u jeedinaynaa beesha caalamka, qaramada midoobay inaanu si wada jira u fulinno resolution kaas ama qaraarka qaramada midoobay 2036 ee 2012 ee mamnuucaya dhoofinta dhuxusha. dhuxusha waxa ka ganacsigeeda iyo dhoofintiisa sida xogtu xaqiijinayso ka faa'iido lacag badan ka hela al-shabaab.
waxayna uga faa'iidaystaan amni darrada iyo qaraxa maalin walba ay inagu hayaan nabadgelyadii bay khatar ku tahay dhaqaalihii bay khatar ku tahay deegaankii iyo biyaadii bay khatar ku tahay xoolihii bay khatar ku tahay noloshii bay khatar ku tahay markaa si wada jir ah aan uga faa'iidaysanno inaynu la dagaalanno ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha isla markaana si wada jir ah aynu u baadi goobno in wixii lagu bedeli lahaa gudaha isticmaalka dalka gudihiisa aynu helno intaasaan ku soo koobayaa saaxiibadayda kale aan uga baxaya waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi